dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladda maanta aynu caawa halkan u joogno ee xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo aynu maanta galinkii horena ku xusaynay hotel guuleed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waxaanu caawa halkan ugu sugannahay runtii inaynu xusno maalintaas oo aynu qaybteena ku muujino waxa socon doona barnaamijyo runtii kala duwan waxa dhici doonta dood dhalinyarada iyo nabadda ku saabsan oo aynu marti uga nahay aqoon-yahaniin dhalinyaro ah run ahaantii waxaa sidoo kale la soo jeedin doonaa laba presentation oo runtii laba qof oo qarankan qiimo weyn ku leeyahay ayaguna ay soo jeedin doonaan haddii ilaahay idhaa inta ay xafladdu inoo socoto si ay waqtiguna inoogu soo koobnaado fadlan dhagaysiga aynu aad u xoojino iskuna dul qaadano insha Allah waqti badanna halkan inaan u qaadano kuma aanan talagelin waxaan idinku marti qaadaynaa idinkaga mahad celinaynaa inaad maanta noogu casuumantiin xaruntii Soonyo oo runtii aynu ku sugannahay dhammaanteen waxaan rajaynayaa in barnaamijku insha Allah si habsamiya uu inoogu socon doono mar kale aad iyo aad baad mahadsantiin waxaynu runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu waxa weeye maanta inagoo joogno waddankeena nabada aynu xusayno maalintan oo halku dhigeeduna uu yahay dhalinyarada iyo waxa weeye nabadda saaka waati aadka runtii looga hadlay ee hadallada dhaadheer laga jeediyay dad badan oo runtii kale oo aqoon-yahana iyo mudanina way la faguri doonaan runtii arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo dhalinyarada marka la leeyahay dhalinyarada iyo nabadda runtii waxa aad iyo aad qofka markaba maskaxdiisa ku soo dhacaysa inay dhalinyaradu yihiin cidda waxa weeye had iyo goor u nugul inay waxa weeye dhalinyaro nabad la'aantu waxa weeye ay dhacdo oo waxaynu ka warqabnaa meel kastoo adduunka imika qalalaasi ka jiro ama kuwii waddankeena iyo wadamada jaarkeena aba soo maray dadka ugu badan ee waxa weeye dhibaatadu ka soo gaadha waa dhalinyarada kuwa miiska waxa weeye mar walba saaran kuwa dagaalamaya kuwa iskuulku ka baabaayo kuwa shaqada beelaya kuwa waxa weeye aabaho kuwa ay dhibaatada ugu weyn dadka ay wajahaysaa runtii waa dhalinyarada marka inay dhalinyaradu waxa weeye arrinta laga wacyi geliyo oo ay ka korto oo ay dhalinyaro waxa weeye majuura oo kala garanaysa waxa saxda ah ee khaladka ah runtii aynu dhalinyarada lagu wacyi geliyo guud ahaan halku dhigaasi waa ka maanta adduunka oo dhan laga hadalhayo waxaynu ka warqabnaa duruufihii aynu soo marnay waxaynu arkaynaa waxaynu ugu soo socda oo haddii ay waxa weeye aynan ka diyaar garoobin mararka qaar sababi karta inay haddana mar kale dhibaato ay waxa weeye ay dhacdo waxaynu ugu soo foolay doorashooyinkaasi waxay mararka qaar sababaan dunida dhan inay qalalaasa ka dhaco waxaynu u baahanahay inay dhalinyaradu qaybtooda ka qaataan caqligooda waxa way kor u qaadaan dhibaatada waxa weeye maanta taala ee waddankeena ka jirta ayaynu doonaynaa inaynu ka sii soconno horumarkii aynu sii siyaadino dalkan dhibaato badan baa loo soo maray halgan baa loo soo galay maantana halku jooga waa meel u baahan in laga sii qaado oo lagu mitido waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan aad ugu mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay ee munaasabadda runtii soo camiray iyo intii gacanta ka geysatay waxaan u mahadnaqayaa hay-adaha internationalka ah ee ka gacan geystay arrintan sida waxa weeye UNFPA Oxfam Save the Children iyo SOS oo aan isleeyahay waxay ahaayeen dadkii markii aanu ku dhawaaqnay inaanu hawshan qabanqaabinayno gacanta ka geystay kelmadda hay-adaha support gareeyay xafladan iyo xafladiisa ka socotay hotel guuleed aan magacooda ku hadlo dhalinyartu waa cidda ugu mudan ee haddii nabad la soo hadal qaado ay tahay in la iyaga la tilmaameedo waa cidda haddii nabad wax laga qabanayo wax ka qaban karta waa cidda haddii nabad waxyeello ku timaadana waxyeellada keeni karta muhiimadda maadaama ay leeyihiin waxay u baahan yihiin iyagana qorshe kasta oo qaran oo la qabanayo in muhiimadda ugu badan iyaga la siiyo inta qorshaha qaranka maanta dejisan ugu jirta ugu filan in haddii loo fuliyo dhalinyartu ay wax ku noqonayaan wuxuu baan odhan lahaa
dhalinyarta reer Somaliland wax badan oo idinku aad qabsan kartaan baa jira cidna waxba ka sugina hadiyad waxba la iskuma siiyo maanta wadankiina waad arkaysaan waad ka shaqaysan kartaan shaqooyinka wadanka yaala ee dadka dibadda inooga yimaada ay qabtaan kaliya xirfadeeda aan lahayn laakiin kartideeda waad leedihiin xirfadeediina waad yeelan kartaan marka waxaan idinku talin lahaa inaad xirfado barataan aad ku shaqo beegsataan marka dhalinta waxaan leeyahay kartida idinku jirta ka faa'iideeya aqoontiina geliya tayo xirfadaha badan ee idinka maqana beegsada sidii aad shaqo ugu heli lahaydeen waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland hadday wanaagsanaato Soomaalilandna wanaagsanaanayso waxaan idinka dhaxarkayaa mustaqbalkii waxaan ogsoonahay wax kasta oo Soomaaliland aynu qawadnay haddii inagu wanaagsanaanay inuu saxan karno waxay si taas u baahan tahay dadaalkiina waxay u baahan tahay inaad ka go'naansho isbedelkuna wadanku inuu isbedelo siyaasaddu inay isbedesho waxay u baahan tahay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland qof inay isu bedelaan qof walba inuu xoroobo laabtiisa safaysto qabyaaladda iyo qudunka iska daayo nin jeclaysiga iska daayo mustaqbal baad u baahan tahay su'aashaad isweydiinaysaa waxa weeye mustaqbalka wanaagsan sidaad u helaysaa sidaad ku helaysaana maaha inaad dawladda dhaliisho maaha inaad mucaarad ka dhaliisho sidaad nolosha ku helaysaa waxa weeye adigu inaad wanaag iska bilowdo qof wanaagsan aad noqoto gacan walaalnimo inaad walaalka kale dhalinyarada u fidiso inay saqbashaan isku duruuf baatihiin shaqo la'aan baa idin wada haysa dib magaalooyin qurux badan baa u baahan tihiin magaalooyinka Hargeysa iyo Burciyo Berber waxba lama kala qurux badno isku duruufun baa taala marka cidda ay dhibaatooyinka Soomaaliland yaala sida gaarka u taabanayaan idinka weeye Soomaaliland nabad say u heshoona waxay u baahan tahay midnimo dhexdeena ka dhacda xilli doorasho soo socda kelmadaasan markaa uga faa'iideysanayaa maalmaha doorashada wada jirkeena walaalnimadeena Soomaalilandnimadeena dhalinyaranimadiina intuba way naga dhaawacmaan waxay ku dhaawacmaana waxa weeye hanuun qoloqolaynu noqonaa waxaynu kala raacnaa oo saddexda qof ee sharaxan maanta saddex nin baa sharaxan saddexduba Soomaaliland bay leeyihiin waa saddex nin oo mudan kii soo baxay in Soomaaliland maamulo barnaamijna inoo hor yimaadaan baa muhiim ah barnaamijkeenu kala dooranayna waxaynu ku mitidaynaana waa sida agaasimuhu sheegay maalintay doorashadu dhacdo ee natiijada lagu dhawaaqo wadanka Kenya xalay waa arkaysan wixii dhacay laakiin adduunyadu dan gaar ah bay ka leedahay xil baa la iska saaraya Soomaaliland waxa laga yaabaa adduunku inaanu xil iska saarin inay nabad si ahaato oo tacabka iyo adduunka iyo arrinka la gelinayo Kenya iyo Ethiopia inaan naga leeyna gelin waxaynu soo baahanay inagu inaynu midowno ku tuntuusano oo marka labada laga helo aynu waa laga helay kursiga nabadda ka weyn Soomaaliland jiritaankeeda ka weyn taasaanu aqbalayna iska bismilayso nabadda iskaga noolow ka helayna aynu ku dhiraano war waxaad ballan qaaday ummadda u oofi oo wadankan horumari oo dhalinyarada shaqo u samee taasoo mustaqbal inoogu jira mawduuca laga hadlayaa inuu ballaaran yahay sustainable peace and the role of youth in peace building kaliya magacaw kaliya sustainable peace hadeen ku hadlo aan si kale u raadaa French ka bedelo malaha waxa weeye joogteynta iyo sugitaanka nabadda haddii aan ka hadlo runtii aad buu u ballaaranaya iyadkeeda dadka ka fadhiya aqoontooda ku kalsoonahay in qof walba ka mid yahay intii kaga soo aada uu ka oranayo haddii saasha waxa weeye markaa sharciga ama xeerka islaan qaban in badan aan dagaalanteena dhalinyarta Soomaaliland sharciga dhalinyarada loo aqoonsina halka waxay ka duuli karaan markii uu ogaado in su'aalaheena iyo doodayda ku salayay doodada mashay sida uu dhigayo Somaliland National Youth Council dhalinyaro waxa loo aqoonsan Somaliland doorka maanta dhalinyartu ama Soomaaliland noqotay inta ku matashaan noqotay nabaddu way had iyo jeer aan su'aasha si kale u dhigo cilmiga waxa la yiraahdaa nabaddu ama colaadu ma hayni xabadi maqan tahay qula colaadi ma kaliya ama nabadi ma kaliya inay xabadi maqan tahay nabadda lafteeda iyadoo la degayo deganaansho lagu jiro haddana saaray gees wiileed oo dhici karta waqtiga doonto tii doorashooyinka soo socota iyana ka mid ah bal waxa ka warantaa markaa doorka dhalinyarta ee geed socodka u shaqo laga soo qadanka maanta la dhigay iyo intii ku sii leeyay بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. xilligaan ka sheekayna runtii horta ahaan aad baan u yaraa waqtigii waddanka ugu soo noqdayna waxaan xasuustaa dee inuu dalku burbursanaa laakiin sidii loo nabadeeyey iyo taariikhdu baan ku haya dhalinyarada maanta Somaliland dhalinyarnimo ilaahay ku samay horta nasiib wanaagsan bay heleen nasiib bay u heleen inay helaan iskuul nasiib bay u heleen inay helaan biyo nasiib bay u heleen inay helaan deegaan la ilaaliyey nabadiisa oo dowladnimadu waxay keentaa nabad systematic system qofka marka qofku dhaawaco ama qof qadaf ku dhaco meel uu dacwoodo maxkamadu tago saldhigu kayskiisa kasoo riboort gareeyo horta waa wixii bini aadanka u dhexeeyey imika wax mooda inaan faruhu isku baxsanayn qofna qof aanu ka arsanayn laakiin aynu haysano haddaan dhalinyaradii maanta nahay meel aynu u noqono u kala dacwoono isla markaana aynu marjac u noqono oo systematic marka taasi waa nimco oo waxa weeyaan dhalinyarada maanta nasiib bay u heleen oo dhowr iyo labaatan sano marka dib loo noqdo dee nin waliba xooggiisu wax iska celinaya nin walibana intuu nin waliba ka xoog weyn yahay iyo intuu ka qori badan yahay iyo intuu ka hog badan yahay ayuu wax ku cunaya ama wax ku dhaansanaya geela ku dhaansanaya ama yani markaad qofkii danyartii hangaabkii dadku say u kala xoog badnaayeen ayagoo loo noqda laakiin maanta ma jirto marka waxaa jira sinaan in markaa still yani wax noqon ma garanaysaa barkadow la odhan karo halkii loo baxna ayay gaadhay laakiin waxaan mahadsanaa aasaaskii garabkayga midig baan usoo wareegayaan skimbro nimco cusmaan cabdi doorka dhalinyartu ay ku yeelan karto ama ku leedahay caadiyadba adoolaha iyo dunida kale nabadda iyo dhismaheeda balka waran dhalinyaradu xaqa waxay door muhiima ka ciyaartaa peace building iyo sustainability-ga peace building marka laga hadlayo sidaa sheegtay nabad inaad haysataa maaha inay colaadi kaa maqan tahay maanta markay abaari ina saamayso colaad baa jirta maanta markay amnidarayna haysato colaad baa jirta maanta markay fasilitiyadii ugu muhiimsanaa sida waxbarashada caafimaadka aanu si wanaagsan u shaqaynaynin waxayna haysato maaha yacni colaad baa jiraysa so sidee loo develop garayn karaya ama maxaa kor kicin karaya waa doorka dhalinyarada oo la siiyo keliya ta maaha dhalinyaradu inay ka qayb galaan siyaasadda oo siyaasadda waa muhiim taa ma beeninayo balse in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka waxay kaga qayb qaadan karayeen waa maxay horumarinta ay naftooda ku horumarinayaan through development of themselves aqoon ahaan environment ahaan ka qayb qaadashada in aad dalkaaga dib u nadiifiso ama dalkaaga inaad dib u hagaajisaa waxay ka mid tahay adigoo security-ga ama nabadii dalkaaga kor u qaadaya adigoo kaga qayb gala in aad wacyigelin samaysid waxay ka mid tahay adigoo nabadda dalkaaga kor u qaadaya marka keliya ta maaha inaad siyaasadda lagaga qayb galo balse habab kala duwan ama siyaabo kala duwan ayaan anigu aaminsanahay shakhsiyan inay dhalinyarada kaga qayb geli karayo nabadda iyo sustainability-ga dalka cabdiqaadir intiina aanay isgaranayn ama aysa aqoonin runtii waa dadkaan shakhsiyan weliba anigu ku matalayaa ku tiriyo dadka dhalinyarta ugu firfircoon dhawaan waxaa ku guulaystay Chevening scholarship ama deeq waxbarasho ingiriiska runtii dhif iyo naadir dadka aqoonta leh ay helaan su-aasha lafteedu baan sii gudna degayaa adigu iska soo taag dhinacaaga iyo dacalkaaga dabeeta kusoo eeg indho ka duwan kuwan anagu ku eegnay maxaa ku muuqda abdikariim bismillaahi raxmaani raxiim horta qeexitaankeenu xoogaa isla yaro saxaynaa si aynu markaasi aynu galno caqabadaha iyo fursadaha jira ee aan anigu eegayo habkan aad u qeexaysid nabadda waa habka uu qeexo ninka la yidhahdo John Galton ee ah peace in the absence of the conflict marka habka aynu maanta aynu nabadda aynu u dhisanaynaa waxa weeye waa stagekii ugu dambeeyey ee maraaxiisha kala duwan ee ay marto habka loo yaqaano hab dhisidda nabadda nabaddu markaas waxaynu qaadanaynaa laba qeexitood waxay odhanaysaa markaynu falsafada qeexitaankeeda aynu ku qeexayno nabad togan iyo nabad taban labadii xaaladoodba nabad waynu haysanaa laakiin waa maxay nabadda togan waa maxay se nabadda taban
fahanka aynu fahmayno qeexitaanka noocaasi wuxuu inoo fududaynayaa halka uu qofku iska taagayo aragti ahaan marxaladda markaas uu stateka ku jiro ama bulsho ahaan aynu ku jiro. yes waxaan aaminsanahay somaliland xaaladda ku jirtaa waxa weeyaan wax xaalad nabdeed oo laakiin kaba ama waxaa la yidhahda negative peace. nabad waynu haysanaa, ciidan ina ilaalinaya waynu haysanaa, nidaam dowladeed oo shaqaynaya oo shuruucdii maxay jira waynu haysanaa. laakiin mashaakilka ugu waaweyna qarankeena waxa weeye mabaadi'da ilaalinaya nabadda togan ayaa maxay dhicasho ku jira. waxaa ka mid ah social ama bulsho ahaan dhalinyarta oo ah xuduudda ugu weyna qarankan leeyahay oo lagu qiyaaso sida national development plan ku yidhi 27% waxay u cadila yihiin maxay shaqo la'aantaasi waxay keenaysaa in bulsho badan oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalin jabinaysa ay heli waayaan fursad nololeed oo ay ama qoys ku abuuraan ama ay ganacsi ku dhistaan. dabadeedna waxay keenaysaa inay iyagu isla nabadii tacabka badan la geliyay ayagu mushkilad ku noqdaan. nabaddaas waxay keenaysaa ligliganaysa ee aad ku sheegtay gees maxaa yeelay wiileed nabad dul taala oo markay doonto dhici kartaa waxa weeye marka bulshadii dhalinyar tahayd loo waayo dad jiheeya, marka la waayo nidaamkii dawliga ah ama hay'ado dawli ah oo u habaysan in dadkaa tirada badan ee dhalinyarta ah shaqo u abuuraan, waxay noqonaysaa kow inuu qofkii dhalinyarta ahaa waddanka ka taaribo, laba inuu qofkii dhalinyarta ahaa ee shaqada waayey uu waddankiisa ku dhex liyeeso, uu noqdo dhac geysto, dabadeedna nabadgelyadu si fudud ay faraha uga baxdo. marka positionkaan ka taagnahay waxa weeye weliba koolka waxaa kusoo koobayaa oo keliya dhalinyarta, waayo dhalinyarta ayaa maanta leh waxa weeyaan kow in dhalinyarta xirfadda ay helayaan si ay suuqa marka ay soo baxaan ay shaqo raadinayaan laga soo bilaabo iskuulkooda waxbarasho ee hoose dhexe ilaa heer jaamacada uu noqdo nidaam ka turjumaya waxa suuqa marka koowaad u baahaya. si xirfadda uu ardaygu soo qaadanayo hadday noqoto maxay aqoon, hadday noqoto maxay mihnada uu ku shaqo tagaya ay noqoto mid beritoole aanu ka naasinin ee uu noqdo mid uu ku shaqayn karo oo qarankan iyo siyaalaha kala duwan ee bulshada u nooshayda uu u buuxiyo. marka focuskayga waxaan saaraya waa saas. ta labaad waxa weeye dee mushkiladayda ugu weyn ayna haysataa waxa weeyaan wax dunida ka socda oo ah brain drain. in bulsho dhan oo wax baratay oo kriim ah oo labeentii qarankana uu lahaa in lagu soo tabacay waalid iyo dowladnimo ahaanba ay si fudud qarankan ay uga tahriibayaan, intaasi ay badaha ku dhibanayaan. xaaladaha noocaas ee qaranku aanu ka lahayn qorshe weyn oo dheer iyo mid dhowba waxay iyaduna hadibo ku tahay habnololeedka bulsho ee somaliland ay u dhaqan. marka si aynu nabadii u ilaalino ay nabadii u noqoto mid xana qaada oo hirgasha oo waddankeena deegaan kasta laga dareemo kow dadkaasi wax tabanaya ee ay dhalinyartu u horeyso wixii tabashadooda daweyn lahaa in loo helo. waxaa in badan hadalkeena kusoo noqnoqday jahaynta dhalinyarta. waxaynu aragnaa weli doorka uu jiraa dhalinyartu, laakiin halista ku gadaaman baa ka badan inay u fudud yihiin inay halis ku noqdaan, inay ku tabarucaan ama wax ku darsadaan. dhalinyarta jahaynteeda markaad eegto iyo xalka adigoo isu saaraya sidee baa jidka loo mari karay? wallaahi waxaan odhan lahaa markadowta su-aashu waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa adduunka haddaynu ka hadlana dhalinyaradan ka hadlaynaa waxa weeye 1 waxaan maleynayaa 1.8 bilyan oo qof oo dhalinyaro ah. in somaliland u nimaadana waxaynu ka hadlaynaa 2 milyan iyo 450,000 oo qof inay keeli daadashmayso dajad sida xogaha qoran ay sheegayaan, waayo 70% baa isticmaalaya barkaya baa laleeyahay intaa. marka saasay soo baxaysaa. waxay u baahantahay qorshe qaran. ilmaha qorshaha qaranku waxaa la rabaa ilmuhu maalintuu dhasho ilaa intuu jaamacadda ka baxayo in qorshe dejisan oo qaran uu jiro. qof ilmuhu uu barbaaray dugsigu u bilaabay primary, dugsi dhexe ilaa dugsi sare, jaamacad buu galay. markuu jaamacadda ka soo baxo
waa halkay fadhida xikmaddu haddaad jaamacadaha ku saabto 20 kun oo qof sanad walba oo 20 kun ee qof 2 kun oo ka mid oo kaliya ay shaqo helayaan oo 18 kun oo aqoonyahan isu haystaan suuqa ku sii deynayso waxaad suuqa ku sii deysay qof dhalinyaro ah oo analysis samaynaya oo ku fiirsanaya oo su'aal isweydiinaya oo nolosha rugogaya oo ku khasban inuu go'aan sameeyo go'aanada qaadanaya negative oo noqon kara positive oo noqon kara markaa waxaa isleeyahay qaranka sanduuqa la yidhaahdo ee Somaliland Development Fundka iyo gaar ahaan qayb ka mid ah in loo jebiyo la yidhaahdo sanduuqa dhalinyarada inuu ku dhaco miisaaniyadda qarankana ilaahay idinkii 1% ha noqotay in loo qoodayo dhalinyarada marka dhalinyarada halabuur kala timaada imika siday walaashay ka hadlaysay dhalinyarada halabuur kala timaada kuwa ugu barabay inay samaystaan kuwa mashaariicda fulin kara in kuwa markaa markay ka fiican soo bandhigaan in laga siiyo waayo annagu saa waxu bilownay baa berigii laga sagaashan waxay ahayd annaguna shaqaanu abuuranay dhalinyaro kalena shaqaanu abuuranay 29 ilaa 29 haa mushaaric ku jirin gaajo badan baan ku shaqaynay waanu sabarnay laakiin 29 wixii ka dambeeyay mushaaric baan qaadanay mashruucan maamulayana ilaa 5 qof oo kale oo dhalinyaro ah ka shaqaynay cabdiraxmaan waliin ugu aqoonta badnaa mashruuca programku maamulayay marka laga yimaado isaga waxa laga yaabaa inay horsimanayeen dad ku dhow 100 qof oo dhalinyaro ah oo aasaasayaasha xaflad ka mid ahayd marka waxaan isleeyahay qarankeenu inuu wada dhaqaaqo ayaynu u baahan tahay Soomaaliyana inay culaysaa badan samayso dawladdu dadaalaysaa weliba dhalinyaro ku yara gacan yartayo marka in gacanta ay wada weyneeyo insha Allah qorshe cad oo markaa qorshe aan hadal ahayn resource waa dadka iyo dunyada moogtahay iyo dunyo ku filan oo shaqada lagu qabtana markaa loo qodeeyo dawladdu arrimaha dhalinyarada inay u soo jeesato waayo waxaan isleeyahay haddii mushkilaadka dhalinyarada haysta wax laga qabto Somaliland mushkilaadkeedu dhan wax laga qabtaan isleeyahay markaa dawladdu il gacan ha u yeelo weliba saddex inay marka musharaxiintina waa meesha ay fadhideen mushkilaadka dhalinyarada haysta intay maskaxmaal badan ku sameeyaan xalna ha helaan asoo bandhigaan markay meesha kooda helaana wala beerayaan oo balanta ka dhabeeyo gudoomiyaha laftiisa cabdicasiis aan su'aashaas weydiiyay maxaan hadal ahayn ee wala samayn doona ahayn in 20 sano dhalinyarteena hor fadhiyo kuwayna daawan doonaba aan loo sheegay ee ka duwan ee caawa idinku haysa sooyaan way bismillaahi raxmaani raxiim golaha sideedaad ee sooyaan gudoomiyaha ka ah runtii way مشاكلات الرياضة وارتعاد بوبنية وشو سنة وانا بقعد كوينا شو سنة أنا بقعد كوينا وحكلان كده ده الناشنال ديفلوبمنت بلانكو أي وقيم كان أقوال إن الرياضة بعيد لكن ونتي ديفرنس بين واضح هي وشيء جوهر يكلم وكوب يلا با تبقى وتكم أيها كتير كان وده بدل مثلا نجي وسهل المشروع strategic blankets ayaa si taatawanaya wuxuu ka kooban yahay ilaa 9 tiir oo 9 tiir baa mid waliba uu aag mashaakilaadka dhalinyarada haysta uu wax ka qaban doono karim baa runtii taabtay waxaan u marka gacanta ku haynaa sanduuqa dhalinyarada Somaliland Youth Development Fund ayaa gacanta ku haynaa madaxweynaha waa horgeena qoraalkii inuu noo magacaabo dhalinyaradu ay ka noqoto board meel wanaagsan maraysaa sanduuq badan ma doonaynay waxaan ugu talagalay inuu loo sameeyo tax levy midaan magacahay in shidaalka percentage loo saaro in qaadka percentage loo saaro in sigaarka percentage loo saaro oo labada dambe aan sheegay baahiye ku yihiin dhibaato ku yihiin dhalinyarada aada u saameeya caafimaadkooda noloshooda markaa dhiig joojin magdhow hawsoo dowladda waan ka wada hadalay kulamo kalena waa noogu haarsiin nimanka ganacsanaya ee taajiriinta iyaga laftooda waxaan ugu talagalay in aan loo xisaabtano waayo waxaa maqan mas-uuliyaddii ay iska saari lahaayeen qaranka way macaashayaan kala rereemaayo iska يعني كوي بسيطة كوسة يعني جناح سيجور بس كم قالوا قف كوي معاش
ayaanu dalkan uu ka macaashay mustaqbalkiisa hadduu socdaan dhalinyaradiisa aanu mas-uuliyadda iska saxan taana insha allah waxaan ku dadaalayna in iyagana tusna dadka hadday doonaan hada jawaabi waayaan hal qodob baa iyo muhiima adeegyada dhalinyarada ee tayeeya dhalinyarada ee jaamacadaha iyo iskuullada waan ku qaylin doonaa iyadana fikisaya samayn doonaayo iskuulla badan oo dalal kale laga leeyahay macallimiin aan ku qalabkii ku shaqeynaynin yani federation ummadaas noqoto ummad wasaarad hagto ay hagto qorshe qaran hago qaranka mustaqbalkiisu hago ayaan ku dadaali doonaa استراتيجي بلاك أورسي إن شاء الله التناديل يو سالين هي النظيرة وتي محمد كفلة يعني نقرب استعجال هذا وحسيتي هذا ما تنتين أنا لا هذا مرتبة جرتين وتهاد كونوا أنا راح أكمل ذلك كده حاليا حاج عبد الكريم حسين حاج عبد الرابع وحيلي صورنا بدي سهيلة دوت سيدتون معها صور عرادي سلوك المرتبة صور معها إلهي waxaan ka baryaa horta inuu tahay nagu sugo mar kale aan cid walba ka horusiniinta inay soo fadhida ee dhaxanta ay fadhido u sabirtay sida waxaan dhegaysatay nala dhammaysay barnaamijka aan midigteeda kasoo bilaabo cabdulqaadir idhaahda waad mahadsan tahay axmed nimco sidoo kale idhaahdo xaawalada nagala joogtay waad mahadsan tahay wasiir cabdikariim iyo sidoo kale gudoomiye cabdicasiis dhammaantood mahadsantiin